waxaa jira fariimo beena oo dadka aada loogu fidiyo. waxaan rabaa inaan ka hadlo laba nooc oo mid ay laba tahay. nooca koobaad aan rabo inaan ka hadlo waa fariimo badan oo qoraal idinku soo gaaraya oo laleeyahay waxa haddaad akhrido waxaasaad heli, aad kursi haddaad akhrido waxaasaad heli, qurwalle inta haddaad akhrido waxaasaad heli, digri haddaad akhrido waxaasaad heli, muddo intaa le gudaheed baad waxaad ku arki, haddaad samayn weydo fariintan fidi, haddaad fidin weyda dhibkaasaa kugu dhici, oo ballanqaadi oo sidaasoo badan oo been ah. arrimahaasi shaki badan waxaa laga qabaa inay ka dambeeyaan dad aan muslin ahayn. nuxurka iyo ujeedaduna diinta dadka in laga shaki geliya ay tahay. laba arrimoodba marka waa muhim inaad ku baraarugto. marka koobaad, waxaan la sheegaya waad heliyo oo kugu dhici laleeyahay waxba kama jiro. aayadna ma sheegin, xadiid nabi oo suganna ma sheegin. waa been ay dadku sheegeen, waa been la alifay oon sal iyo raadtoona lahayn. saa darteed ballanqaadyadani diinta ka mid maaha. sax aad kursi in la aqriyo fadli bay leeyahay tusaale ahaan, laakiin haddaad akhri weydo waxaasaa kugu dhici iyo haddaad akhrinta akhrida muddo intaa leeg baad wax ku helido been wey. qodobka labaad ee ku baraarugta ay tahay waa xumaanta ka dambaysa. haddii maanta ballanqaadka aad rumaysood arki weydo, mid labaad aad arki weydo, mid saddexaad arki weydo, mid shanaad arki weydo, mid tobnaad arki weydo, marka dambe waxaa iman diinta waxaanu ballan qaadaysee wada beentaa maxayta. diinta inaad ka shakida wey waxaa labaad imanaya. waana yoolka laga shakisan yahay hay-ada iyo shakhsiyaad iyo dad badanoo waxaa ka shaqaynaya inay hiigsanayaan. haddaba si khaldan yaan lagu raran. fariinta labaad aan raba inaan baraarujiyo waxaa weeye, maalmahan qof codkiisu aada isugu egyahay, isshabaho ba wuxuu soo diraa fariimo xambaarsan axaadiid nabi sal slam laakiin beena. aan laba fariimood ka soo qaato. waxaa laga yaabaa inaad ila aragteen aada iyadoo la isugu dirayo fariin odhanaysa nabi maxamed baa sal slam 4 jirkay ku jiradaan, 4 jirkay dumiyaan, 4 risiqay reebaan, 4 risiqay furaan, 4 wejigay nuuriyaan, 4 wejigay nuurkiis ka qaadaan. taas waa been. nabi maxamed ma dhihin sal slam. waa dardaaranno dhakhaatiir bixiyeen. ibnulqayimna zaad almacaadka akhirkiisa ku sheegay. qaarkoodna niman dhakhaatiir oo griigii hore jalin yosiya rag lamid a bixiyo muslim ba ahayn. taas nabigaa yidhi waa been, waxba kama jiro. isla fariintaa waxaa ku duuban in nabigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi saytuunku saliidda zaytuunku 7 cudur bay dawa ka tahay. waa been. nabigu ma dhihin sal slam. waxaa ka mid ah aadaanka ha la aamuso waxay aan la akhriyin. nabi maxamed wuxuu yidhi haddaad aadaankoo socda wax akhrido shahaadada sakaraadka markuu qabto tawxiidka haleeli maysid. iyana waa been, waxba kama jiro. nabi maxamed baa hadli jiray, saxaabadaa hadli jiray oo sheekaysan jiray aadaankoo socda, sida muwatta maalik laga wariyey. cumar markuu khudbaynayo fuulo mimbarka salaada la joojin jiray, inta la aadaamayana waa la sheekaysan jiray. saasay saxaabadu ahaan jireen. marka iyana waa been, nabigu ma dhihin. waxaa ka mid ahoo fariinta uu xambaarsan yahay rumaanka iniintiisa iyo midhihiisa mid kastaba biyaha ku jira jannay ka yimaadeen ama biyo jannaa ku jira. waa been. nabi maxamed ma dhihin sal slam. fariintaa dhan laba eray baa runka ah. nabigu wuxuu yidhi balliquu canii walow aaya, iyo nabigu wuxuu yidhi xabatu sawdaa shifaaun min kulli daa. inta kale waa been. nabigu ma dhihin sal slam. fariinta labaadeen tusaalaha kusoo qaadanaya kale waxaa weeye codkaa shabaha ninkaana u eg yaa wuxuu warinayaa fariin ku bilaabanaysa wallaahi wa billaahi wa tallaahi. haddaad dhegaysato wuu ku saamaynayaa, qalbigaa waxuu ka bedelayaa. duruusun fi lxub. intaa dhaarta ah muxuu ku dhaartay? been buu soo wadaa. wuxuu leeyahay nabiga iyo cumar iyo abubakar iyo abudar baa meel isugu yimid. nabigu abubakar buu weydiiyeyoo maxaad jeceshahay buui. adduunyada 3 baan u jeclahay buui. cumar buu weydiiyeyoo 3 baan u jeclahay buui. abudar buu weydiiyeyoo 3 baan u jeclahayoo jire iyo cudur iyaa ka mida. kadib nabigaa la weydiiyo adduunyada 3 baan u jeclahayoo atiibu waannisaau wasalaatu buu yiri buu leeyahay. intan dambe oo weli wax khaldani ku jiraa ka jirta. tan nabiga calayh salaam way jirtaa. xubiba ilaya min dunyaakum atiibu waannisaa wajucilat qurata ayni fi salaa. adduunyadiina riwaayaadka qaarkood odhanaya 3 waa been. riwaayada 3 ma jirto, waayo salaadu adduunka ka mid maahaba. atiibu waannisaau nabigu waa yidhi. sheekadan kale ee ku lamaanay waa been. meel kutubu sunna ay kaga qoran tahayna ma jiro. inay sidaas tahayna culammadu waa sheegeen.
nin la yidhahda qasطalaani bwaahib laduniya ku sheegay cajrulina fii kashfi اlkhafaa markuu sheegay meel lagu garanayo inayna jirin bay sheegeen marka sheekadaa beenta buu dhaar uusan ilaahay ugu baari samaynin buu ka horreysiinaya codka ninkan iyo ninkan waa isu egyihiin dee ciddii garanaysa farrinteeda ha gaadhiso muslimka beentana dhexwada ka daa ha la yidhahdo nabigan laga been sheegaayo been la mid maaha khayr baan jeclahayna qiil uma aha in nabiga laga been sheego dadka fariimaha beenta sheegayana intaad waxaan khayr baan jecel lahay tiraahdaan ha dambaabina oo beenta axaadiidta haddaad 100 qof u qorto u dirto wada fowaal garaysaan oo sii wada dhaadaan mid walba wuxuu ku leeyahay aakhirka agtaada yanan fadhiin qofka weliba waxay u sii badinayaa codkiisa ii sii adkaysiinaya xataa carabi ma kasi ma garan yaqaan carabi soo loo wada qofkan ma yaqaan tan dambe saddexda u dhaaranayana Abu Dharr buu magaciisa kale laayay tan horana sadaqa jaariyu garan laayay sadaqatu jaar wiilay jaar waa darisne jaariya ma sadaqa soconaysa ma حتى جاري جار بكرة كأن لا أبو ذر بقى كأن لا حينتم بنتن أحاديث مالو كسر قرا الاستعداد ليوم المعاد كي من حجر لو تيرني بنتها ثلاثيات كي رباعيات كي خماسيات كي سداسيات كي عشاريات كبنتها يكبوا الحين طالما ملايين أيام بدي بقول ما نقننه إنه قير كسر طلطلة حن ربع فرين تيلو خير كفيدية لكن إسكاه صدق دمارة بنت الورد عن صدق حن نقننه مكرفونا بنت وأديجها هالنقننا وهذا النبي والله قب عن شيء وأدم بوين نبي إن كذبا علي ليس ككذب على أحد بين لا يغشى يلا من مع بين قفك لا يغشى فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إلهي الله يجابه فرينت إذا قفك صوده وعدي قرن سيادتك هلا جارسيه بنت هلا سكيل عليه خير له وانا هلا فديه وما حسنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.